السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa meel walba oo diga daawanaysaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba muuqaalkan laba arrimood oo kala duwan ayaynu ku falanqeyn doonaa. waxaan marka hore falanqeyn doonaa arrintii badda Soomaaliya iyo xaaladaha ugu dambeeyay maxaa ka cusub iyo xogo badan oo soo baxay oo falanqeyn doonaa. waxaan kale oo aan ka hadli doonaa habraaci la boobay ee baarlamaanka lagu dhax boobay maxaa habraaca ku jiray, maxaa dokumentiga ku jiray, maxaynan ogeyn iyo documentigii oo sidiisaba aan soo hordhigi doono waliba midkii uu aadan madoobe saxiixay iyo macluumaad badan oo ku jira oo aan runtii sidii la rabay aan umada loogu sheegina runtii waan falanqeyn doonaa. soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba. haddii arrinta badda aynu ka bilowno runtii ugu dambeyntii waxaa banaanka yimaaday xaqiiqada la xiriirta waxa heshiiskii Ethiopia ee qolka mugdiga Muuse Bixi kaga saxiixatay waxa uu yahay ayaa finally banaanka yimaaday. waxaana mar kale aan rabaa inaan iraahdo aragtida aynu ka haysano heshiiskani iyo waxa ka soo bixi doona way ka khatar badan tahay, waxa qarsoon baa ka khatar badan. sidaa daraadeed waxaynu u maleynaynaa ama dadka inta ugu badan ay u qabaan dakad briski canshaada lagala soo dago inay Ethiopia raadinayso, laakiin arrintu sidaa way ka duwan tahay. warbaahin dalka Ethiopia ah oo wareysatay Muuse Bixi ayaa Muuse la weydiiyay bal inoo sheeg bal lagu yiri su'aal ah bal wuxuuna update naga sii arrintii aad memorandum of understanding ki aad kala saxiixateen Ethiopia bal warbixin naga sii bay weydiisay warbaahin Ethiopia. Muuse Bixi jawaabihii uu ninka uu bixiyay waxa ka mid ahayd in Somaliland markaasi ay ka ijaartay base ciidanka badda ah, wuxuuna uu yahay base ciidan aysan ahayn dekad lagala soo dago arrimo ganacsi iyo bariis uusan ahayn. arrinta markii ay timaaday runtii waxa markiiba isbedelay aragtidii laga haystay heshiiskani. awal waxaynu fiirinaynay niman badeena qayb ka mid ah qabsada isla markaasna ganacsi iyo nolol ayaguna ay yihiin dad doonaya inay markaa helaan meel ay ka helaan dekada oo ganacsi ah iyo nolol, laakiin taa way ka duwan tahay. in la yiraahdo marka waxa la siinayaa naval base baa la siinayaa ama laga ijaaray, macnaheedu waxay tahay inuu meeshan ka soo bixi doono waxa loo yaqaan proxy war. proxy warku waa dagaal dadka dagaalamaya ay isticmaalayaan dad kaleeto. tusaale Mareykanka iyo Ingiriisku ay dagaalamayaan ay midna Soomaaliya isticmaasho midna Ethiopia isticmaalaan cid is dagaalaysa Ethiopia iyo Soomaaliya ay tahay, laakiin kuwa gadaal ka riixaya ee Mareykanka iyo Ingiriiska yihiin waxa ba proxy war la yiraahdaa. meesha marka waxa ka soo baxay baa la yiri proxy war. markiiba warbaahimaha caalamka oo dhan ayaa bilaabay inay falanqeeyaan proxy war ka meeshan ka soo socda iyo waxa uu yahay. meel walbana waxa lagu qorayaa in meeshan ay ka soo socoto proxy war waliba qatar badan u keeni doona Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed. dawladaha saameynta ku leh dagaalkan proxy war ka ah inta la og yahay hadda inta qarsoon lama garanayo, laakiin inta hadda la og yahay waxa ka mid ah Imaaraadka Carabta oo ah actorka ugu weyn uguna saameynta badan regionkan iyo Red Sea waa 1, Djibouti waa 2, Israel waa 3, Talyaaniga waa 4, Faransiiska waa 5, Ingiriiska waa 6, Mareykanka waa 7. inta la og yahay 7daasi dawladood ayaa directly iyo indirectly ba qayb oga ah waxa meeshan ka soo socda ee proxy war ka. haddii aan isku dayo inaan wax yar idin ka xasuusiyo munaafaqada ay reer galbeedku ay leeyihiin, waxaad arkaysaa dadka iyaga oo si weyn u wadwada Mareykan baa Soomaaliya taageeray, Ingiriis baa Soomaaliya taageeray. hadalkooda markii aad dhuuxdo qaybta ugu horeysa oo aan hore uga hadlay ahayd hal ixtiraamo madax banaanida dhuleed, midda cireed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya. waxay gadaal ooga darayaan mar walba dad u fiirsataan hadalka la yiraahdo arrintaani ha lagu dhameeyo wada hadal isqabadsi. Soomaaliya hal ixtiraam madax banaanideeda iyo wada hadal lagu dhameeyo. waxaa la doonayaa inaan ka gorgortano madax banaanideena iyo dhulkeena iyo cirdigeena iyo sharafteena. la doonayaa inuu miisgeyno oo ka gorgortano. finally waxay reer galbeedku furayaan masraxyo annaga Ethiopia lagu wada hadashiyo
talyaaniga qaar hadda bilaabay inay meeting ugu yaraan xasan sheekh maxamuud oo asbuucan talyaanigu tagi doona isaga iyo Ethiopia la fariisin doona kuwa kale ba ka dambeeyo imaaraadka ka dhici doona oo la doonayo in la fariisiyo horay kuwa wadacay Djibouti kuwa kalena way soo socdaan Ethiopia waxay raadinaysaa marka waa naval base ama waa saldhig ciidan oo badda iyo cirkaba marka wax laga weerari karo oo ay dawladaha reer galbeedka isticmaalaan saldhigaasi iyo meesha uu ku yaalana ay noqon doonto territory Ethiopia ay leedahay ama dhul ay Ethiopia leeyihiin hadaad ka warqabtaan sida Mareykanku uu sameeyo waxa arkaysaa jasiirad uu Mareykanku leeyahay oo kamid ah territory-ga Mareykanka ayaa waxay ku taalaa Yurub shadeeda balse uu ku yeesho lama garan karo sida daraadeed marka meeshan territory ay nimankaas leeyihiin balse annaga nagu dhax taala sida xalana oo kale ayaa laga sameeynaya waan waxa la doonayo way markaysa basekan Ethiopia hadda ay sarto inay sameysato waxa la doonayaa in marka laga weeraro xuutiyiinta isla markaasna dawladaha reer galbeedka iyo Yahuudda waxay doonayaan in Ethiopia noqoto dalka markaasi u qaabilsan dawladahaasi Red Sea iyo halka loo yaqaan Babul Mandab oo aan horay aan muuqaal uga sameeyay cid halkaasi waardiyaha uga noqota oo u jaajuusta oo amnigeeda u ilaalisa oo aan gacan muslim aan gelinin ayaa la doonayaa Ethiopia inay noqoto waa qorshaha ay kulligood ku midaysan yihiin waxaad ogtihiin in meeshaan ay tahay marinbadeedka ugu biisisan caalamka afartan dhinac wax ka deganaa dad muslimiin yihiin sida daraad marka cid la doonayo inay gacanta ku hayso ay maamusho waa dawladdaasi maxaa la yiraahdaa Ethiopia dadka qaar ba waxay leeyihiin Ethiopia way burburaysaa Ethiopia hatta hadday burburto oo ay dawlad kala timaado ama cid kala timaado saldhigga halka ka yaala iyo foreign policy Ethiopia isma bedelo Soomaaliya isma bedeshay Soomaaliya isma bedeshay Ethiopia isma bedesho tusaale dawladda ka horeysay waxay Soomaaliya kansaleen heshiiskii imaaraadka iyo Ethiopia la galay baa la kansalay DP World baa la kansalay xasan sheekh maxamed ku soo laabtay daraad warbaahintu wuxuu ka yiri Ethiopia waxay 19% ay leedahay dekada berbera marka maxay dekada uga baahan tahay buu leeyahay Ethiopia has commercial interests in Somalia. Yes, in Berbera, they use Berbera port and they have a stake of 19% even in the ownership of the service of Berbera. وهشيسكي برلمان كتلقيي laga dooday la kansalay gudaha baarlamaanku saxiixay madaxweynaha la horgeeyay madaxweynuhu saxiixay imaaraadka dalka laga saaray xiriirkan loo jaray ayuu xasan maanta wuxuu leeyahay barbaray leedahay markaysa Soomaaliya markay isbedesha oo aan siyaasad foreign policy fadhida aan lahayn Ethiopia-ku isma bedelo 91 Soomaaliya markay burburtay Ethiopia ma burburay markii wada istaageen baadana qabsadeen markaysa أنا ما أنت نايسته أبي هدي عاود بربطه نك الدبوا قبصة محركة مركبة سيب واحد أنت وصل عبتو أنا قبصنا إياه اسمه بدش أم حارد وكم كلا فكر دونا على كذا الصومالي كهيستان لكن الصومالي كل أرتي دون أرتي إثيوبيا كهيستان قارب كوا إثيوبيا بنا لكن نك إثيوبيا كصومالي بنا ولي سكورنا يو قلب كوا أنت هذا كله أنه قرشها ماشي عن كسر ده بروكسي وركا أتسبب أو فيرسان إسكو حركيسو وعيدا توبيانا أو لغو تابرايو جيبوتي هورن لغو تابراي عيدا كاش تابرك وحاسي دولة فرانسيسكا وحا مشارات كودا بحية إلا هذا بحية إمارات كعربتا أهداف تلقل لي هنا وإن الريد سيجا يقولكا يودان أي كوم بتلان أو أي قعنتا كو حيان توبيانكو دولة رقلبات كي يمريكن كمركا وهدي لدوني يمركا عيدي لدوني إن لغو رفتو إنا يقال لغو رفتو فرانسيسكا تليانيغا iyo ingiriisku waxay kamid yihiin dawladaha ay noloshooda ku xiran tahay Red Sea waana sababta hadda Fransiiska iyo Talyaaniguba aysan qayb uga noqonin duqeymi xuutiinta marka loo geesanay wixii hadda ka dambeeyay marka dalka iyaga waxa dhexda loo gelin doonaa oo soo socota in xuutiyiinta Ethioopiaanku ay badahna ku dagaalamaan iyo in badaha iyaga Soomaaliyeed markaasi cidda inagu maamusha oo masuulka annaga naftarka naga noqota oo waxa inoo soo galaya ayagu ay maamulaan ay noqon doonto dawladda intaqaana Ethiopia anagoo fiirsanayna ayaa dalkeena laga xir doonaa xuduudda oo Ethiopia ay maamul ay noqon doontaa cid maamusha si hadda dhulka naga u maamulaanba arrintan la xiriirta waxaan ka hadlay arrintan Red Sea waxaan ka hadlay 15kii bishii January baan ka hadlay
muuqaalkii aan oga hadlay muuqaalkaan u ahaa bartayda Facebook bartayda YouTube-ka muuqaalkii waa laga saaray abil baan dabcan inaan qaato abilkina waa laga diiday wax baalkii kuma jiraan wax bahalkii khalaq xumaa kuma jiraan laakiin waxaa bilaabatay in macluumaadyada siraha loo arko ee qotada dheer ee ay dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah ay sheegayaan lama ogola in ay ummaddu ogaato mid walbana waa laga saaraya waa muuqaalkii afraad oo muddo yar oo kooban bartayda YouTube-ka laga saaro ayadoon wax violation ah iyo problema usan muuqaalkaygu lahayn waxaa hoos loo soo dhigayaa hadda saamaynta YouTube-kaygii hoos baa loo soo jiidayaa nowadays sababtan marar badan idii like saara subscribe saara bal share gareeya maadaama waxaynu isticmaalayna ay kan kaliya tahay marka muuqaalkii hore nooga hadlay arrintaani waa la saaray kana waa suurtagal in la saari doono laakiin waxaan rabaa in ummadaydu fahanto qorshaha meesha yaalo oo dhan waa inta waa in badeena qayb ka mid Ethiopia inta qabsato xuutiyiinta lagu dhufto xuutiyiintana ay annaga nala dagaasho halkaasna ay noqoto base-ka laga weeraro xuutiyiinta baabul mandabna marka ay gacanta ku dhigaan Israel Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kooxaan iswata Faransiiska iyo kuwana de qayb bay leeyihiin oo meesha way isticmaalaan qorshaha meesha yaalo oo dhan waa inta laakiin takada Ethiopia meesha hadda ka dhisanayso oo ay bariis iyo raashin kala soo dagayso oo ganacsi ama jiro dagaal proxy war aba dalkeena dhexda loo galiya dalkeena ay dawladdeena ummadeena Soomaaliyeedna way daawanayaan ninkii Hargeysa ku qayilayay ee lahaa maxaa la yiraahdaa badda annaga iska leh muddo yar ka bacdi baynu arki doonaa halka ay dalkooda iyo deegaankooda ay geeyaan iyo ummadooda hadda nabadda ku sugan haddii caawa ay aadeen xuutiyiintii waxay ka helaan bay leeyihiin waxaan rabaa inaan u galo habraaci la boobay maxaa ku qornaa oo aadan ogeyn baan rabaa inaan meelo yar ka taataabto waan ka gudbi doonaa waxaa hortiina yaala isla habraaci uu aadan madoobe saxiixay koobigiisii oo soo gaaray dhowr meelood baynu ka fiirin doonaa habraacan la boobay waxa uu yahay iyo waxa warbaahinta loo sheegaya completely kala duwan yihiin waxa arkaysaa niman siyaasiyiin oo warbaahinta meelaha kale dhamaystirka dastuurka la dhamaystiraya la diidan yahay inuu qabyo ahad al rabaa laakiin habraaca waxa ku qoran dhamaystirka dastuurka lama yiraahdo habraaca waxa la yiraahdaa habraaca ansixinta wax ka bedelka dastuurka in dastuurka la dhamaystiro iyo dastuurka wax laga bedelaa waa laba toobi oo shaqo isku lahayn wax ka bedelku saar loo dhigo noqon kara laakiin dhamaystira waa dhamaystira way wax ka bedelku wax laga saaro lagu dar noqon kara wax ka bedelku wax lagu ziyaadiyo noqon kara laakiin dhamaystirku waa topic dadka marka warbaahinta u sheegaya iyo dadka in waxa la dhamaystirayaa ay dastuur tahay ma ahan waxba laga bedelayaa waxa lagu ziyaadinayaa dana shakhsiga laga leeyahay way ahdaafta dhabta haddii aan dhowr meelood bal idinka tuso wax meesha ku qoran oo idinka yaabin doona qodobka toddobaad ee habraacan la boobay aan loo codaynin 7 daqiiqo gudahoodana aadan madoobe uu lacag ku qaatay inuu yiraahdo waa loo codeeyay number dadaana uu sheego xilli uu gudaha baarlamaanka dagaal ka dhex socday isqab qabsi waxa ku qoran qodobka dood markaad fiiriso waxa ku qoran oo ila akhrin kartaan dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galayaa markii lagu soo saaro faafin rasmi ah oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya leedahay qodobka inta faham aan ku celinayaa waxa la yiri dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galayaa waa qaab temporary ah buu dhaqan galayaa waa goorma markii dawladdu ay soo saarto waraaq faafin ah oo ay tiraahdo uu dhaqan galay si ku meel gaar ayuu u dhaqan galay galayaa bal waa markii wax laga bedel ka bacdi bay dawladdu soo saari doontaa waraaq ay leedahay uu dhaqan gal taas waa qaabka temporary-ga ama qaabka ku meel gaarka qaabka kaleeto oo rasmiga ah inuu dastuurku saas dhaqan ku noqdo oo rasmiga yahayna maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay baa la yiri wuxuu si joogta u dhaqan galayaa baa la yiri markii lagu soo kordhiyo qodobo ka soo baxa heshiiska wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland ayuu si rasmi ah u noqonaya si kale markii loo dhigo midka temporary-ga ah waraaq xasan soo saaray ba temporary ka dhigaysa ama si ku taqaana ku meel gaar ah inuu dhaqan galay saxiix xasan bay u baahan tahay inuu si dhaqan galo oo mataqaana rasmi ah uu noqdana
heshiiska xasan iyo muuse hadda ay ka furteen Djibouti wixii ka soo baxaa markii la isku daro labadaasi waxooda ayuu si mataqaanaa rasmi ah uu noqonayaa dastuurka meeshaan markaa dhowr waxyaalood baa ku jira waxa ugu horeeya ku jira waxa weeye dastuurkeedu inuu dastuur rasmi ah noqdo waxay u baahan tahay in Muuse Bixi la qanciyo oo qodobo asagu leeyahay lagu daro ayuu noqonayaa maxaa la yiraahdaa dastuur rasmi markaas uu noqonayaa marka uu dastuurka ku meel gaarka uu noqonayaa dhanka xasan weeye midka rasmiga aana labadooda markay wada fariistaan ayuu noqonayaa mid rasmi ah dastuurkii marka ummadda ay lahayd xasan iyo muuse ayuu u xiran yahay way macnaheedu halkaasi ma aan hadal la garan kari waay ma aan waa Soomaali fudud oo simple ma garanay baarlamaanka Soomaaliya akhrin in kaleeto Muuse Bixi maadaama asaga la yiri uu ku xiran yahay dastuurka Soomaaliya oo rasmi noqdo hadduu Muuse yiraahdo caawa heshiiskii la galay Itoobiya la yeelo hadii kale ma yeelayo loo yeeli doonaa waa su'aal haddii se loo yeelo dhulka Soomaaliya qayb Itoobiya qaadanaysa miya ma garan karayo Muuse muxuu la imaan doonaa arabna wuxuu la imaan doonaa laakiin Muuse la hoosgeeyay dastuurka inuu Muuse rasmi inta ka dhigata Muuse Bixi baa leeyahay qodobka waa inta qodobka saddexaad markaad fiiriso isla habraaca la boobay waxa ku qoran qodobka saddexaad habraacan wax ka bedelka dastuurka farqadiisa saddexaad markaad fiirisaan waxa la yiri guddiga wax ka bedelaya waxay kaashan doonaan hay'adaha soo socda in dadka la doonayo in laga talageliyo si uu u noqdo dastuur ku meel gaar ah si loo dhaqan geliyo mid ku meel gaar ah si loo dhaqan geliyo dadka la tashanaya yihiin kow waa xafiiska madaxweynaha la tashanaya madaxtooyada ee la tashanaya labo waa kan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka waa wasiirada iyo rajaha weeye tasdaxaad oo maxkamadda sare tan afraad waa maxkamadda dastuurka tan shanaad waa xukuumadda dowlad goboleedyada waa wasiirada dowlad goboleedyada tan shanaad waa golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada waa baarlamaanka dowlad goboleedyada soo soco maamulka gobolka Banaadir culimada Soomaaliyeed bulshada rayidka arrinta markaad fiiriso waa 10 kooxood weey 10kan kooxood 7 kamid ah waa Xasan Sheekh Maxamuud weey saddex ka maqan oo kaliya oo maxay tahay saddex ka maqan madaxtooyadu waa Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddu waa Xasan Sheekh Maxamuud maxkamadda sare ninka fadhiya isaga magacaabay waa isla asagi maxkamadda dastuurka waa isla asagi maxkamadaha madaxweynaha magacaab marka asaga ay hoos tagaan hadii aad diidaan wala tuuraya mid kale la keenaya gobolka Banaadir asagoo hoos taga Xasan Maxamuud hoos taga culimada Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud hoos taga cid uu rabo u yeeranaya boqol rag asaga waafaqsan baa loo yeeranaya kaliya bulshada rayidka sidoo kale waa isla Xasan waa 7 out of 10 gacanta Xasan bay ku jiraan dadka la doonayo in laga talageliyo in dastuurka Soomaaliyeed marka la dhamaysto markaysan taasina oo mid kale to la yaab leh waxa lagu soo daray SSC Qaatumo ayaa lagu daray SSC Qaatumo isteeg la siiyay waa arrin fiican ma ka faa'iideysan doonaan saxaab baa lagu yeeri doonaa fardhiya mar kale to oo wixii hore kale inta loo sheegay ayuu dan tagi doonaa waa su'aal waqtiga uu ka jawaabi doono laakiin Janis bay nimankaas u heleen laakiin Janis bay SSC heleen qaabkii uga faa'iideystaan baynu arki doonaa dhanka kale markii aad fiiriso arrimaha kale oo la yaab kale oo ka dhaxarkay ayaa waxay tahay baarlamaankii boobka ku ansixiyay habraacan reer Soomaaliland baa ku jiray dabcan way ku jiraan 61 bay ku leeyihiin aqalka hoose xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah la doonayo inay wax ansixiso rasaar ku-xigeenka oo ayaga awood bay ayaguna qayb bay ka yihiin dalka dhan bay ka mid yihiin markii aad fiiriso maxkamadda sare ninka jooga waa reer Soomaaliland culimada Soomaaliyeed qayb bay ka yihiin waa loo yeeri karayaa ururada rayidka bulshada qayb bay ka yihiin dad badan oo cad baa la garanaya ayaga ah intaayo dhan dadka Soomaaliyeed bay la qabaan iska badaaye awood bay dheer yihiin oo markii aad fiiriso xukuumadda hadda cida hogaamisa oo heshiis walba hogaamisa meesha loo yaqaano wanika rasaar ku-xigeenka Xamse ma joogo marka aan ka hadli doono arrintaasi 17 kala fadhi bay golaha wasiiradu ay yeesheen intii ay xilka hayeen 14 kamid ah rasaar ku-xigeenka dalka ayaa hogaamiyay 3 kamid ah soo hartay ayuu Xamse hogaamiyay ninka labada sano dalka ra'iisul wasaaraha ka
saddex kala fadhi ayuu xukuumadda bas hogaamiyay inta kale muusan hogaamiyay taasoo muujinaysa marka inuu asagu hogaamin ba taqaana xukuumadda oo nin kale uu hogaamiyo oppositionkiisa uu nin kala fadhiyo marka dhinacaasna awood bay ka leeyihiin su'aashu marka maxay tahay waa maxay marka sababta maadaama temporary ay qayb weyn ka yihiin reer Somaliland waayo sababta midkii rasmiga ahana ee ayaga ugu xiran tahay labadan mashruuc markaad fiiriso qaybta hore oo la yiri si ku meel gaar ah ayaa loo ansixinayaa qaybta ugu badan awoodda ugu badan nimanka iska waa dad Muuse Bixi ka amar qaatay Somaliland ka yimaado qaybta kale marka aad fiiriso oo rasmiga ahna cid la final la fariisan doonana waa Muuse Bixi waxa ka dhigaya dadka awood badiyeen dastuurku mis umada ka dhaxin su'aal kale oo aad meesha imaanaysa waa arrin kale oo muujinaysa inaynu ku dhex jirno trap ama inaynu ku dhex jirno dabin aanan aqoonin halka uu ku dhici doono marka ugu dambaysa arrintan socota marka waxaan bilaabay mucaarad xoog leh ayaa ka hor yimaaday oo u muuqata inaysan dhaafi karinin waxa garowe lagu aas-aasay madalla cusub oo mucaarad ah oo hadda inta la og yahay dad waaweyn ay ku jiraan ra'iisul wasaarayaasha hore dhan ay ka mid yihiin ayaa la sameeyay oo Sheekh Shariif iyo farmaajada la filaya xataa inay ku tarsanaan wixii ay wali aysan wali sheegin laakiin inta la og yahay ilaa iyo 6 ra'iisul wasaare oo hore ayaa qorshahan ku jira garowna u noqon doonta geedo fadhi shir baa hadda lagu dhawaaqay garow la isugu imaan doono oo la doonayo Xasan in final la hadlo la yiraahdo arrintan jooji hadduu arrintan Xasan uu joojin waayo waxyaalaha aan ka soo xigtay siyaasiyiintii arrintaas u dhundulelay waxa ka mid ahaa inay suurtagal tahay in baarlamaan qaarna garow fariisto qaarna xamar fariisto oo la yiraahdo aadan madoobe gudoomiye baarlamaan ma la yiraahdo oo la yiraahdo mooshin baa garow lagu sameeyaa dawladda federaalka oo xamar laga guuro qaarna xamar ku xaran in la yiraahdo kudlad mucaarad ah oo badbaadinta qaranka magac loo bixiyay baa la sameeyaa la yiraahdo taasoo fadqalala cusub dalka gelin doonta waana wixii aynu lahayn aynu ka jeensano oo difaaca badda aynu jeensano oo Xasan diiday in laga jeensano markaysa Xasan marka hore loo yeeri doona Xasan Maxamuud ee garow lagu yeeri doona waa la hadli doona Siciid Dani baa geed fadhi waa kudladahaasi ku qulqulaya garowe haddii marka uu diido soo jeedimaha la xiriira in arrinta la joojiyo ama banaanka la soo dhigo oo si ummadda ay ku qanacsan tahay loo furo ama la yiraahdo loo dhameystiro dastuurku Xasan diido in wax laga bedelo there will be a problem dawladnimada Soomaaliya ee awal xamar dhaafil ay laba u qaybsami doontaa midna garow way fariisan doontaa midna xaab ku har doontaa maxaa ka soo bixi doona wax la garanaya ka soo bixi doona oo taasoo ah in ummadda la kala qaybiyo in dawladnimada aysan heshiis lagu ahayn in baarlamaanka la qaybsamo in la yiraahdo Xasan madaxweyne maahan yaa arrimo kale to inay burburto madasha wada tashiga qaran nimanka maamul goboleedyada qaybo ka bida ayaa arrintan ku jira ayagoo doonaya inaan la faragelinin inay dib u soo laabtaan bay doonayaan sida qorqor oo kale sida lafta garoon oo kale waxayna garow ka sheegeen in ay tahay arrin fiican qofka mar la soo laabtay ayuu Siciid Dani marka la hadlay xashaq mid ku dhagaalay taasoo muujinaysa inay ku biiri doonaan badashan ku biiri doonaan saddexda ninba way ku biiri doonaan waa Cali Guudlaawe iyo qorqor lafta garan bay ku biiri doonaan waxa kale ku biiri doona ugu yaraan ilaa 7 8 ra'iisul wasaare hore ku biiri doonto waxa ku biiri doona madaxweynaha hore ku biiri doona muhiimaddu marka waxay tahay mucaaradkii Xasan la socday sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ayaa ku biiri doona waxay noqon doontaa marka in mucaaradkii ugu weynaa ee dawladda Soomaaliyeed ka hor yimaada inay garow fariistaan yiraahdaan dawladnimadii Soomaaliya waa lagu cayaa taasoo aysan suurtagal ahayn Xasan wax dhaqaajin karo halka maanta inoo muuqata haddaan waxba laga bedelinin ee loo socda waa halka dalka Allah badbaadiyo inta ku soo koobiya dib soo laabanayno waxaan degan tahay Sanawadiro. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.